koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhagayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhawaada xubintii kalamaan dharka kan cadayste jidka dhinac maraaye dhibka diidayo war heesta saas ma aniyow inkugu dheeloy dhulka qoda hoos u dhaadhacay aynu dheregne xaax war ninku cod xaraara war heestu saas maana ku dheelin jaalla dhoobada anna dhagaxa dhisma weeye kii ka dhunto dhibka diido dhaxal kuma lihid war saas maahaniyow wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhowr war sidaa maahana waxay ahayd wadaan dhilitoy sacaa dharag ma leh oo ninkaa dhimay dacda ka wareeg hobeeyey dacda ka wareeg hobeeyey dacda ka wareeg war heesatan wariya war maaha sidaaye waa qoonda dhididkii dhagargeli laa ka dharbaaxdo dhulka qodo oo beera midha dhala dhaqa oo tacab weeye dhihi kara war nimayo niman waalan baa tihiine heesaad iskala duusheene dharka ninkii warka bilaaba noo sheegay waa dharkii militariga 14 Oktoobar oo ay nimankii qabeen laamiga yaalyaalle war 14 Oktoobar aad sheegayso waa maalintii qaarixii soo dad badan oo Soomaaliyeed baana ku baabay haddana dharkii 14 Oktoobar dad kale lagu laayay maxaa isbedelay waa isla layntii war hooy waa tuurta lagu dhalay maalin dhagareed misna dhagar kale ku dhamaado dhig ku daadi war qolada ciidanka dawladda tuutaha soo siida iyo kuwa al-shabaab siiya masku qola maswa laba qolo war ma yadii awr baa wada dhalay war heeda beesha caalamku labadan gacmood ay nagu taageerayso mid ha naga dayso haddii kale labada lugoodna noogu darto war ka war dogomeedu dogontil sidii bi'aadi iyada le talanku kala saarasa wariya dharkii adalkasi hobada dheeradu wayti beesha caalamka labada gacmood naga dayso dharalkasi hafidoy wariya war beesha caalamka labadaba waa bisha cadaaladna u dhaqantaayo aday godobka galayso malaha war yaareen reer qayla weyne nabad iyo nolol nasiibaad ku taageertaan hadaad weysaan nacab ku haydin laayo war muxuu ku hadlay naftu ka baxday naxdintii xanuunkii dhiciya naafad iyo dhiiga nabad iyo haday nolol adeertaasi noqonayso nanaada beentiyo naxlina cidi ku naaxayso nin walba uu nacayb iyo xumaan dhagar ku naashnaash geel jira dheer wiilay oo ku walkin yaabay lisa hoog derbiga laakiin ka tilaabsado ay meelaan ko daara biisku ku dhigniyow marunta laga cabsanaya arag kale nolol kama imaanoon cid ahayne caasimad dadkeedii sidaan ugu cayaarayo adawgeedu suu yeelaya ciil la baday war caasimada dadkeedu kuma ciyaarine adawga ka difaaca war ma haysiina madaxweynaha Soomaaliya saddexdii madaxweyne kulankoodii markuu ka soo laabtay horay wuxuu kala kulmay saraakiisha ciidamada kala duwan wuxuu yiri sababta ay ku dhaceen qaraxyadu inaad meel saartaan ayaa idin ka rabaa war horta madaxweynuhu muxuu xilka uga qaadi waayay taliyayaasha wax ka qaban waayay saddexda baabuur ee maalinta cad la soo dhigay number 4 war madaxweynaha dad markay qaraxyada dhaceen soo toosi muxuu wax ka weydiina sababta ay ku dhaceen qaraxyadaas waxay ahayd in amisom la weydiiyo waxa la weydiiyay ama yaan la weydiinay waxaan la yaabay markay yiraahdeen 10 qofood kaliya ku dhimatay war ma haysaane nabadoon Soomaaliyeed ayaa tala soo jeediyay oo raggii xeer jajabka ku xeel dheer ay kamid ah wuxuu yiri qaraxyada al-shabaab ay fuliyaan hal lagu saleeyo 4.5 yaan qolo gooni loo dul saarnaanina haddaan balaayada la hurayn hal la qaybiyo miyuu yiri war balaayada maxaa loo qaybinayaa wixii iska qaban waayay bay qoodanaysaa qoodhina waa garta godana ka soo leexi war awowgood la gub eega waad iska qaylisaana war ma haysaane al-sayid sheekh axmed madoobe oo garbaharey u socda ayaa eega barnaamij laga horgeeyay kuwa awowgood la gubo ayaa ka dambeeyay eega kada arinta war waxaas waa biyo intaysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa war ana may baliyaabsanya nimankun awowgood la gub awowgood la gubnin kana nagaayan war ashraafti awowjina awow shariifa yaa weylag leeri amid midoo maynin sheegay awowgii la gub wiligiin baa la teeganaada yaa weylaga siin damboytay war al-sayid sheekh axmed madoobe maalintii shariif iscasilay wuxuu yiri aaba dhacday ya shariif oo is'aali cabsi badan ida iska cararmiya marka maanta maasaygi bay ku timid war madaxweynihii Puntland Cabduuli Gaas saaki su'aal la weydi madaxweynihii golaha iskaashi waa kii iscasilay xagee ku dambeyn doonaan golaha iskaashiga markaas uu yiri su'aasha ay dambeysay su'aal kale
kale ka muhiimsan weydi war su'aashaasi ma silly question have not answer ba war ceeb sheegis ceeb dugdugisa ka fiicanayo madaxweyne waar aman dheera isdhiibi shariif la ka takhluus ay ogsanaba haafna ambuul arab saarango ahmed midowr hata la ka garguurido hay abduwali gaasna sama final kale ka qaatimaysade wasi sheegay reed aw baylibaho ha shantii shal goytay ha sadiina aantay lamada ka darba wir arrintaas culimmada 4.5 kuwa ka dayrsheen war dadkii hadda ka hor bariira lagu laayay qaramada midoob war cad ay ka soo saartay ciidamo Mareykan iyo kuwa Soomaaliya laayay tiri dadkaas dad shacabeyna ahaayeen oo laba saqiirayiin waray ka keenan ma aha warnooma cadeediyo cad ma ka keenay war kuwii maalin dhaweed amisom huruwa ku laayeen faranjeerada miya wali ku jiraan mase waa laas geli filinjeerka war may afar faranjeerka geliya siyeeto ka damboytay hotel saafi banaanjay ka gohen war 80kaas dad loo aasaa la yaqaana ee afartii meel saar waryaanahan dhageysaniyo waxaana subaystaan uu garan maayee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi golihii wasiirada ayuu isku shaandheeyay barna cirku u diray barna dhulku u daayay war Mustafa Cagjar madaxweynihii Soomaali State jigjiga wuxuu gogol u dhigay dadkii ku dagaalamay gobolka Sool sida daraadeed Soomaaliland aad sheegayso waxay xalli waayeen Mustafa Cagjar baa jigjiga ku xalinaya isla markaana baabuur raashin u diray la yiri goobihii dagaaladu ka dhaceen ma la Itoobiyaanay rabaa dadkaas war waalan ta saalim Itoobiyaanay Soomaali State boo meeliyo gogol lindiki war Mustafa Cagjar dhuus marabi cadaada muu gogol u fidiyo war hobyaha ka reebin hobyaha iyaduna gogol u baahan war hobyo mas'aab herta ama degada loo dhisirba war nimiyo ani war siin haaye koonfur galbeed oo agoon awgi ku dhimid geega dohti may artay Mareykanka may koodsadane walaagi hereeray oo yagad kunka jiro shabaab ino la duqeeyo koodsadane kiyaan awgi jaba dhimid ayoba taasiin yaale boodbooda ma ka deeran ma duqayn bay dalbadeen macaadaan leh war hadday istifaaci waayeen in la difaacay u baahdeen war Donald Trump wuxuu yiri Yurub tabar ma leh awoodayda ku gambadaano war ma Twitter kugu soo qoray ma war Donald Trump baad maanta geedka keenteen war niyo geedku soo doqon ma waaye maaha cid kasta oo iska soo hangagaaraysaa wariya inana nisgafa app boy wariyada ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu yiri mustaqbalka Soomaaliya Eritrea iyo Itoobiya hal madaxweyne yeelanaysa talow kaasma Muuse Biixi ba war balu yarkaada adigu risaaladu wali kuma soo gaarin war ninka madaxweynaha geeska Afrika noqonaya soo farmaajo maaha war waa ra'iisul wasaare khayr madaxweynaha Confederation wala dhan hobel iska daraw Ismaaciil Umar Geyli madaxweynaha nagade war Shariif Xasan baa isku casilay inuu noqdo madaxweynaha geeska Afrika war Shariif Xasan kaamirada nabad inoo lahaa samee loo moogolo marka xafna madaxweynaha Soomaaliya noqonaya war Soomaaliya waaba laga gudbaan ku nolo geeska Afrika la maraya markaas ma Soomaaliya maamul goboleed bay noqonaysaa 4.5 baan wax lagu qaybsan war ma hooga dameer garowsi doona maamul goboleed no 4.5 waa 4.5 wariya Abiy Ahmed 4 milyan ay imaaraad ku siiyeen soo ku aaminayna